بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaan isku dayi doonaa un inaan dhammaystirno wixii aynu ka gaadhno mowduucaynu shalay ka warramaynay ee ku saabsanaa kobcinta iyo barbaarinta ubadka waxaynu guud ahaan soo tilmaamnay ahmiyadda ay tarbiyadu leedahay iyo ahdaafta ama yoolka la rabo in la gaadho kadibna waxaynu wax ka tilmaamnay wasaaisha tarbiyada loo adeegsado inagoo ku jirnay da-da u dhaxaysa markuu ilmuhu dhasho ilaa iyo intuu 6-7 sano gaadhaya waxaynu soo tilmaamnay wasaaisha loo adeegsado inay ka mid tahay alxub walxanaan ama kalgacal in lagu beero iyo in la dabdin karo ama controolka la baro inuu waxna daayo waxna yeelo waxaynu kaloo soo tilmaamnay wasiilo ku saabsan alqudwa waa inu dhuwa ku dayasho waxaanaynu sheegayno oo dhan ka bini aadam ahaan baaba loogu baahan yahay ilmuhuna si gaar ugu sii baahan yahay oo markaynu maalan mawduuca qudwada tilmaamno ama ku dayashadoo kale ilaahayba subxaanahu wa tacaala kutub qura muu soo dirina rasul buu soo diray rasuulku rabbi waa kari karaya inuu kitaab sidiisa u kuusan oo dadku ay fahmaan keeno laakiin waxaa rususha loogu soo dhibay ugu muhiimsani waxa weeyaan inay qudwa linnaas noqdaan kitaabkii oo soconaya oo mabaadi'dii uu sheegayay oo qof bini aadama ka dhex muuqato inay noqoto waxaanu dhi markaa ilmuhu kama maarmo inuu qudwo helo cid uu ku daydo waa fiicnaan lahayd baynu dhi haddii bulshada guud dhammaanteeda raacsiisantahay qudwaadkaasi lagu dayanayo waxaanay gaadhsiisantahay xad uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam hooyadii ilmaheeda u yeedhay ee tidhi kaalay hooya waxbaan ku siinayaaye ee uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maxaad siinaysaa waxay tidhi timir baan siinayaa wuxuu ku yidhi haddii aanad siin lahayn beelley baa lagu qori lahaa yacni wuxuu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilmaha xataa in been lagu madadaaliyaa inaanay bannaanayn in waxaa loo sheegaayo run uu noqoto runna lagula dhaqmo walidalik ilmaha hadduu waalidku been ka barto waa adagtay inaad tidhaahdo beenta iska dah sida awgeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamaya hooyadaasi haddii ay istidhaahdoon ilma aad ku qabsatid waxbaan ku siinaya aduuna aanay waxba siinaynin inay wax lagu dambaabayo noqonayso culamaai tarbiyana ay leeyihiin tarbiyada lafteeda ay xumaynaysaa waa suurtagal ilmuhu isagoo qudwadii haysta inuu mararka qaarkood been sheego mararka qaarkood waxado mararka qaarkood waxaa sameeyo asbaab kaleo tiro badan baa kalifi karta asbaabo kale oo tiro badan baa keeni kara markaana wuxuu u baahan yahay baynu leenahay ilmuhu almawcida in la waaniyo oo wax loo sheego waanadu akhlaaqiyaadka islaamiga oo dhan wuxuu u baahan yahay qof weyn iyo qof yarba in lagu waaniyo wax loo sheego qur-aanku waa ka buuxaa waano iyo waxu sheeg oo haddaad aayaadka qur-aanka akhrido in badan baad arkaysaa iyadoo cid la waaninayo bale ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa nabiyullaahi luqmaan alxakiim qur-aanku ninkuu ku tilmaamayo waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yacidu yaa bunaya laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim luqmaankii xikmadda badnaa wuxuu ku yidhi inankiisii ama ilmihiisii isagoo waaninaya yaa bunaya laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim idan ayuha alikhwa waxaan leenahay ilmuhu wax badan buu u baahan yahay si uu si quman ugu koro haddaynu marxaladaa ku xigta iyana wax ka tilmaamno oo ah min 7 jir ama 6 jir ilaa 12 13
ومرحلة ويلمو غوريغا كبخو او بلابو انو دوكسي iyo school iyo wixii lamida dabadu ugu baxo waxay waa marxalada dhaakirada ama xusuusta ilmuhu ay kor u korto oo wixii uu arkay ama uu maqlay uu weelayn karo inta uu yar yahay wax badan buu ilaabaa laakiin daada markuu soo gaadho waxa la yiraahdaa xusuustiisa badata waxna uu dabdin karaa uu qaban karaa ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حليه مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين عرورتين فرع صلاة يقول تدبشرة واضربوهم عليها وهم أبناء 10 كقراعة هدي ديدان وتبنشر قاران وفرقوا بينهم في المضاجع كوكلا كحاية ميلها الله سيحانا يناها يسكو دارنا المهدادا مركو سو قادو وحبو ويلين كراه أفكي وكو هدل لهانا وبرتا ذاكرة دي سامة حصوصتي سنوي في عنتي وحو النبي قوينا فري عليه الصلاة والسلام صلاة دبرا تدبشير مركوية طبعا شرمركو يهي هدو ديدانا عقوبها هلا محاول حياة طبعا شر يتدبشر حوالي 6 سنوات 6 سنوات امسا صلادات بلتو كان كرا هذا ترى مالنتي واشان سنتك وصدح بغلية لحدا مالها ووحكا بدن كونيو تضاو بغلكا بدن وصلادات شان مركات كله فوتو واشان كونو صلادات اما 6 كونو صلادات وحقارية 6 كونو صلادات وحكو جرا طور التلقين إيين عادة يو نقطين وسوق هذا 3 سنوات وحا لوغو تلقالي لدلي مايو صلاة لوغو قصبي مايو لك والله بريا بالي والله فريا هبين كل لوضها اسكا سيحدو او كغاري كاري وايو marka uu habsaamo ma mashkala lagu canaanan maayo waa la xasuusinayaa intuu tabajir ka yar yahay lagu dili maayo salaad laakiin maxaa laga rabaa haddaad 3 sanadood feejignayd waad ilmahan tababaraysay waxay gaadhaysaa salaadu waqti ay caado u noqoto si caado u sameeyo waxay culimadu yiraahdaan waxaa jira waxa la yiraahdaa tarbiya bil aada qofka shayga waa lagu wadaa bay dhahay in la ay caado ka noqoto mesela ilmuhu markuu yariyay aadaabta cunnada iyo cabitaanka iyo seexashada iyo suuq u bixista iyo masaajid galista iyo waxa soo dhamaan la baraa adkaar baa la baraa adkaartaasi markuu bilowgay wuu ilaabaya saxaabigii yaraa ee la oran jiray Umar ibn Abi Salama ayaa wuxuu leeyahay inaan yaro guriga nabiga jooga baan ahaa calayhi salaatu wasalaam cunnada marka la soo dhigana gacantayda duulduulayso kolba meel baan raashinka xagga xigta kama cunayna kolba meel ayaan wax ka qaadayay dabeetana nabigu wuxuu ugu yiri ya gulaam sami illaah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik nabigu wuxuu ku yiri wiilow bisinka u qabo marka hore bismillaah dheh waa marka labaad ee midigta wax ku cun waa marka saddexaad ee xagga ku xigta wax ka cun waa aadaab al-akl ibn nabigu baray alayhi salatu wasalaam awlay bismillaah dheh ilmaha markuu yar yahay hadii lagu soo rabeeyo bismillaah dheh marka wax la siinayo la yiraahdo bismillaah dheh markuu daa soo gaadho automatic bay maskaxdiisu iska noqonaysaa hadii cunnaba loo dhigo bismillaah buu bilaabaya way uu caadaystay tarbiya bil aada waxa weeyaan qofka in lagu wado waxa kan ilaa intay caadadiisa caadiga ka noqoto noloshiisa ay kala falgasho oo aan u baahnaan inuu ka fakaro akhlaaqiyadka islaamiga oo dhan baa sidaasiya wuxuu nabigu faray ilmahan yar inuu midigta wax ku cuno carruurtu markay yar yartay bidix iyo midigtii ay ku qaadi karaan boo iskaga qaadaan labadaba inuu ku cunaa bay u badantay wuxuu u baahan yahay in lagu rabeeyo inuu midigta ku cuno xataa hadduu guran yahay waa lagu rabayn karaa in midigtu ilaa laba midigle ka noqon karaba waa lagu rabayn karaa inuu midigta isticmaalo
وهذا هو نقاط رقف بدكتيسية بالحديث بسكوميته واستعمالها يعني تربية ده وحلوقة شيء ده كواد وحويان إن قف كان وضد الصحة لجوها جو وأن لو شيء جينا قرر لجوها يو إلا يا أنتو كتو سيا وكقوميو الممركو صعد كبرنا يا وين عاونا وحسكو ضيانو الدرب جراعه وحسكو ضيا مركو يستاجي يروح حسكره كدبو صعد بلابه صعد كمركو بلابه يهرو كفار دعا آخر كمركو دمسكو من بو يسوتاجا وصعدا نرش بني آدم قدم وانوعه أما يروا أما وينو وحك الصعد براني سنرش وعينك وحك استامرك بلا وتيوي أدقي جهد الإرادة كأجب هين مدرسة مركز وضه وحو أوتوماتيك بوس كان نقطة مسكحة على قبصته ده بترى نرش عادي جابو كبيرة المه وحو بهاي مركز ويريه هاي إن لا براع النذا إنه بسم الله يرهده مركو إلا بلا ولا حسوسيه أترى هو يا بسم الله ده مركز هذا ركتبه يسقى مدكتا أو وحكو عنا بدح ركوب بالأبية كقبا واحد ترى هذا تكلا كعد مدكتا كعد مدير بوكا جبهني أنت كذب والله قبصنيه صلاة دي عبادات كيف الله مدى مركها نبي محمد عليه الصلاة والسلام مدة صدح سنة ضاد أبو ينسيه شانس إنه إلمها صلاة كل علنو برا تدبشر مركو يهي حال ولا تدبشر وادة ذاكرة دي صايفي عنتها يو طهارة برنكره وادة سيدا لو ويسيس انتو كيريي وحلا غيابا إنو كلا هالرئيسيو عقا كبلابو ويشيغا كبلابو لكن مركو تدبسو قادو وادة وقرنكره halka laga bilaabayo iyo halka lagu dhamaynayo waada uu garan karo sida isugu xigto waada uu garan karo najaaso iyo waxay tahay waada uu garan karo tahaarada iyo salayso taahiriyo waada uu kaligi musqusha intuu galo ka soo bixi karo markaas waxa la yiraahdaa waxaad ku bilowdaan inaad salaada bartaan salaada inaad barto macnaheedu waxa weeyaan tahaaradiisa iyo weysadiisa iyo wixii u baahnaayo dhan inuu barto kadibna uu salaad bilaabo salaada waxa la yiri 3 sanadood ku xiga wuxuu ahaanayaa qof training ka ku jira 10 jir markuu gaadho macnaheedu waxa weeyaan dhowr kun oo salaadood oo practice u soo qaato hadduu markaa iska soo taago waa maxall العقوبة waa waqti ay banaan tahay in lagu ciqaabo sida sharciga islaamiga qabo sida ogeed da-da uu iskuulka bilaabo wuxuu bilaabaa saaxiibka waxa la yiraahdo marka hore qof walba uu iskala ciyaaro qof walba uu la hadla laakiin markuu da-da iskuulinka soo bilaabo wuxuu bilaabaa dadka cid gaar ah inuu la saaxiibo ama cid gaar ah la dhaqmo saaxiibkuna waa cidda ugu weyn oo wax ka qaato nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa yakul طacaamaka ilaa taqiy إذا مؤمن هين هلا صاحب راشكا كانوا يوعون قف تقية مويانه حال لوجة كذا يعني وحال لوجة كذا عدة مخالطة صمين إنسان عدة يسلح جليسان هالنقطة عد توصنا قوما فينبغ عليه الصلاة والسلام حط المامية يسوق كور رمية صاحبك يقفك الله فريسته جليسك مثل الجليس الصالح والجليس الصوب ونبي تسالك بعي قفك في عنا لا فريسته صاحبك ونكسنا يا صاحبك حن صاحبك حن وحول مدي قف لا فريسته بالنبي يري مد نافخ كيره بو في مدن فرسما يقانك بو فيه هذا مال فرسما يقان فريسته اما بوفينها اما فورتشين ها كجيره بو ميد الكتريسيتي ku shaqeynaya hada wuxuu doonaya hada haddaad meesha tagto birta lagu dhalaaliyo waxa aad ka faa'iido fadhigeedu wuxuu noqonayaa waaqiiqa birta dambaskeeda iyo dhimbiilaheeda iyo waxa fiicnayn waa qof dab kulaalaya baad haddaad se la fadhiisatay buu nabigu leeyahay saaxiib fiican wuxuu la mid yahay xaamilu misk kan cuturta iibiya oo kale labadan jaliis maxaa u dhaxeeya midna ama maradu ka gubi ama dambas iyo boodba kugu saydhin yani waxa dibsatun ba ka soo gaadhay midna cadarka ama wuu ku siin ama waad ka iibsan ama ugu yaraan intaad la fadhido ayaad majlis udgoon oo aan ku dhibinaad fadhida macnaheedu waxa weeyaan qofka saaxiibka ahi
wuxuu la mid yahay labadaa midun. saaxiibkaagu hadduu wanaagsan yahayna khayr iyo wanaag baa kaa soo gaadha, hadduu xun yahayna dhib baad kala kulantaa. saaxiibkaagu hadduu cay badan yahay aakhirka adoo caytamayaad sarkaysaa, hadduu deeq badan yahay aakhirka adigoo aadna gacanta fidiyo wax bixinayaad sarkaysaa. sifaadka uu leeyahay kama maarantid inaad samaysid. walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku tilmaamayaa almar-u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil. qofku wuxuu ku sugan yahay diinta waxaa loo jeedaa dhaqanka saaxiibkiibuu qofku ku sugan yahay. ee qofkiin ha eego cidda uu la saaxiibaya dhaqankeeda. ilaahina qur-aanka wuxuu leeyahay alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin. ama wayowma yacadu الظaalimu calaa yadayhi yaqulu ya laytani اtakhadtu maca arasuuli sabiila ya waylataa laytanii lam atakid fulana khaliila laqad adalanii can الdikri bacda id jaaءanii wakana الshayطaanu lilinsaani khaduula. ilaahay wuxuu tilmaamayaa aakhiro saaxiibkii xumaa kuwii lahaa inay calaacali doonaan oo ku calaacali doonaan bal maxaan hebel saaxiib uga dhigtay, jidkii toosnaa buu iga lumiyey. idan ilmahaaga waxa ugu weyne aad ka fakarto markuu dabad u baxayo waa saaxiibkiisu kumuu noqonaya. saaxiib wanaagsan inuu helo, intaad waani kartee waxu sheegi kartana inaad waxu sheegto. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay nabigaan neefkuu fuushanaa lasoo fuula. kuntu khalfa nabiyi sala allahu alayh waali wasalama yowma. ibnu cabaas inan yar bu ahaa, waayo wuxuu dhintayba nabigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas isagoo 10 jir meelaha daadiisu marayso. marka waxaad dareemaysaa ama 10 iyo wixii ka yar inuu ahaa. haddana ilmaha yar buu nebi maxamed la waramayaa. waa inan yaroo ilmaadeeriyiin oo labadooda abba walaalatay oo 10ka wax uga dhiman yihiin ama 10 kun markaa soo gaadhaya. ilmaha yar buu nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam. dabeetana wuxuu ku yidhi yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaat. war wiilow erayaan ku barayaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. erayo wacdi dheer baan ku jeedinaya, khudbad nabigu ma laha. wuxuu leeyahay erayo kooban ayaan ku barayaa. erayadu nebigu baray wiilka kan waa maxay? ixfad illaaha yaxfadka. ilaahay ilaali oo maxaarimtiisa iyo wuxuu kaa mamnuucay ha ku dhicin. yaxfadka adigana wuu ku ilaalin. ixfad illaaha tajidhu tujaahak. ilaahay ilaali ayuu ilmaha yar la baraya. yacni ilmo yar oo aan 10 gaadhin buu nebi maxamed wacdinaya, wuxuu sheegaya. waxyaaba uu sheegaya waxaa ka mid ah inuu ilaahay ku kalsoonaado, ilaahay oo qura baryo. idaa sa'alta fas'al ilaaha buu nebigu ku yidhi inankaa yar. haddaad cid wax weydiisanayso ilaahay un wax weydiisa buu ku yidhi. waa ilmo yar ayuu nebi maxamed barayaa cidda la baryaa cid ay tahy. haddaad cid wax weydiisanayso rabbigaayo qura weydiiso. waida stacanta fastacin billaah. haddaad kaalmo u baahato rabbigaa un kaalmayso. markaasuu nebigu wuxuu ku leeyay waxaad kaloo ogaataa waclam ana lumma low ijtamacat calaa an yanfacuka bishayin lam yanfacuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak. hadday dadkao dhami isu tagaan inay wax kugu caawiyaan aan ilaahay kuu qorin kuguma caawin karaan buu nebigu leeyahy. hadday dadkao dhami isu tagaan inay ku dhibaan dhibaana la kuu qorin cidina kuma dhibi karayso. waa ilmo yar. haddana nebi maxamed wuxuu barayaa yaa la rajeeyaa yaa laga cabsadaa. insaanka waxay idhaahdaan khutuud mutaqaabila. insaanka dabeecadiisa waxaa ka mid a wax iska soo horjeeda. insaanku waxbuu necbaadaa waxna wuu jeclaadaa, waxbuu ka cabsadaa waxna wuu rajeeyaa. waxyaabaha isha lagu dareemo arkaa ama xawaasta lagu dareemo waxyaabaha macquulaadkuu fahma. insaanku wuxuu leeyahay khutuud badan oo iska soo horjeeda. waxaa la rabaa in sida saxa ah loo tawjiihiyo. oo waa maxay? wuxuu necbaan lahaa in loo sheego, laguna tarbiyeeyo inuu xumaha naco, beenta naco, runta jeclaado, wanaagga jeclaado, rabbigii iyo rasuulkiisa jeclaado calayhi salaatu wasalaam. shaydaan iyo inta raacsisan uu necbaado.
qofkani inuu wax naco waa ku abuurantay waa طabiicati الbashar bay ka mid tahay inuu wax naco wuxuun baa isweydiin le maxaad nacaysaa ma jaarkaad nici iyo dadka kan ma intaydan isku qabiilahayn reer hebelkaad nici waa waxa lagu beeran qofkan abuurkiisa ka mid tahay inuu wax naca nicitaankani wuxuu u baahan yahay markaa in la tawjiihiyo oo wuxuu nici lahaa qofkani loo sheego inuu noqdo waxa xun iyo shaytaan iyo inta raacsiisan inuu naco in lagu beero wuxuu jeclaan lahaa oo aanay noqonin qabiilkiina iyo reerkiina ay noqoto rabbigii iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam iyo dadka saalixiinta iyo inta wanaagsan inuu jeclaado wuxuu u baahan yahay in qofkani la baro yuu ka cabsan lahaa ilaahay inuu ka cabsado subxaanahu wa tacaala iyo cadaabkiisa nolosha kale qof shujaac oo dhiiran inuu ahaado waxaa la rabaa in la baro cidda uu rajayn lahaa inay noqoto inuu rabbigii rajeeyo subxaanahu wa tacaala garto gacanta bini aadamka waxa ku jiro oo dhan hadday isu tagaan inay caawiyaan inaanay caawin karin in ilaahay damco mooyaane hadday dhammaantood isugu tagaan inay waxyeelaanna inaanay waxyeeli karin in rabbi subxaanahu wa tacaala uu u qoro mooyaane idan khuduuda mutaqaabilka ilmuhu uu leeyahay ee qof kastoo bini aadami leeyahay ee qur-aanka in badan ku taalla qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan buu ina necbaysiinaya xumo ah xantaa ka mida beentaa ka mida dhaqan xumadaa ka mid waxaas oo dhan qur-aanku wuu ina necbaysiinaya wax badan oo layna jeclaysiinaya ka mid a waxyaabaha loo adeegsadee ugu quruxda badanlana waxaa ka mid ah qisada sheekada carruurtu da-addaa markay joogto aada bay u sheeko jecesha waanay dhegaysataa soomaalida waayeelkeedii hore tajaaribtooda waxaa ka mid ahaa bii-adii ay ku noolaayeen wax u dhigmo unbay qofkan ku rabayn jireen reer baadiyaa la ahaa reer baadiya marka la yeyna ilmahan yar ad adayg iyo inuu wax iska dhiciyo bahalaha inuu iska celiyo waxaasaa lagu tarbiyeyn jiray marka hooyooyinka iyo ayeeyooyinku sheekooyin bay uga sheekeeyaan libaax iyo waraabo midhan ku saabsan libaax iyo waraabaha kani waxay ku saabsan in waxa la barayaa waxa kan inaanu ka cabsanin ama uu iska dhicin karo ama xoolahooda uu ka ceshan karo laakiin waxaan leenahay qofku qur-aanka waxay ka mid tahay qisasku waxa ugu badan ee kusoo aroora hadday tahay qiso nebiyaala hadday tahay qiso kuwa gaaloobay oo rabbi ka gaaloobay hadday tahay qisooyin ummado la halaagay hadday tahay qiso nebiyo guulaystay hadday tahay dagaalo dunida soo maray qur-aanka haddaad akhrido qisasku aad bay ugu tiro badan yihiin waayo waxaa la yidhahdaa qisadu watar xasaasiyo bini aadamka wax looga sheego weeyaan fakadalika alibnu sagiir baa la mid a hooyadan casriga joogta waxaad moodaa ilmaha inaanay laba hadalba ayeeyooyinkii horunbaa ugu dambeeyay cid guriga ka sheekayso carruurtu intay kusoo xoonto u warramo u sheekeeya waa dhaqankii ay dadkii waaweynaaye hore lahayn dhaqan fiicanna uu ahaa ilmaha kan in sheeko warka la rabo oo dhan loogu sheego wixii la jeclaysiinayo qisas jeclaysiinayaa loo sheegi jiray wixii la necbaysiinayo qisas necbaysiinayaa loo sheegi jiray fakadalika alinsaan ama magaalo ha jooga ama miya ha jooga ama meel kale ha joogo muslim ee gaal midkuu doona ha ahaado kama maarmo sidaa awgeed baa schooling systemka buwaagta yaryara la siiyo waxaasoo dhami waxaa ku badan sheekooyin haddaad iskuullada aragto elementary schoolkiska ilaa dugsiga dhexe meelahaasi buukiska yaalla inta badan waa qisooyin yaryar ama xayawaana laga sheekeynaya ama sheeko yar oo koobana laga waa qisas waayo waxaa la ogayay qisadu inay tahay wasaa'ilka wanaag iyo khayrka lagu gudbiyo ee ugu fiican inay ka mid tahay ilmuhu da-da markuu soo gaadho ee uu soo dhaafo wuxuu soo gaadhaa waxay u yaqaaniin sin almuraahaqa sinigan ay muraahaqada ku sheegaan waa waktiga ilmuhu uu qaan gaadhayo ama uu qaan gaadhay ilaa iyo intuu nuduujka isku filaashiyaha caqli iyo jidheed iyo maskaxeedba uu ka gaadhay sinulmuraahaqu inta badan waa dugsi dhexe xaggiisa dambe ilaa secondary ama si kale haddaynu u tilmaamno waa 13 jir iyo wixii ka dambeeya bii-aadku dhulka ay degan yihiin kala gedisnaanteeda kuleel iyo qabo waxay tahay cunada la cuno kala gedisnaanteeda ayaa inta badan buluuqu ku xidhan yahay qaangaadhnimadu wadanada qaar baa dadkoodu inta badan 12 jir 13 jir ku qaangaadhaan
waddanada qaar baa dadkoodu inta badan 14 jir 15 jir ku qaan gaadhaan shareecadu takaaliifta waxay saartay inuu buluuqun ku xidhan yahay ama 12 ha ku qaan gaadho ama 15 ha ku qaan gaadho waa inuu xadul buluuq gaadho xadka markuu gaadho macnaheedu waxa weeyaan qofku wax badan baa iska bedelay jirkiisi wuu isbedelay hadday inan ahaydna inannimay u dhigantay hadduu wiil ahaana wiilnimo u dhigmay caqligiisu wuu isbedelay hadduu marka hore wax walba ku dayasho iyo waxa kan ku qaadan jiray marka kan wax walba inta badan in la qanciyo ay qanaac buu ku qaataa wuxuu bilaabaa dood iyo war wuxuu bilaabmaa hadal tiro badan waxa bilaabma da'datan wax cusub oo tiro badan ba ku soo baxa nabigu calayhi salaatu wasalaam da'da intay ka yaryiin wuxuu sheegay akhtaadoodu wax la cafiyay inay tahay waayo xagga rabbiba lagama qoro tarbiya ahaan inaynu rabbayno weeyaan laakiin soomaalidu dilkanay la degdegtay in lagula degdega maaha cuquubada iyo masuubadu ilmaha in la dhiirigeliyo iyo in la ciqaabo labaduba waxay ka mid yihiin waxyaabaha bini aadamka lagu rabeeyo ama ha weynaado ama ha yaraado laakiin xuduud bay leedahay mid waliba ilmuhu marka koowaad wuxuu ku fiican yahay kow waxyaabaha masuubaadka ah masuubadu waa abaalmarintu inay badato abaalmarintu xoolo qura maaha waxyaabaha tashjiiciyo dhan dhiirigeliyo dhan baa ka mid ah waxaa ka mid ah kelmad wanaagsan markuu wax kuu qabto inaad eray fiican ku tidhaahdo waalidkii hore inta badan ilmaha way u dacayn jireen weynow iyo allah ku barakeey iyo weedhaa dhaqan ahaan jiray soomaalida agteeda oo markuu wax qabtaba ilmuhu lagu yidhaahdo waa min baabi tashjiic waa min baab thawaab waa abaalmarin nabi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka aan dadka u shukri naqani rabbigiina uma mahadnaqin yani qofka aan bini aadamkaba u shukrin rabbigii uma mahad waa ilmahaagii laakiin wuxuu u baahan yahay markuu wanaagga sameeyo inaad dhiirigeliso dhiirigelintu inay noqoto eray fiican oo aad ku tidhaahdo wejigaaga uu bashaash ka dareemayo inaad ku faraxsan tahay waxaan uu sameeyo aad ku ammaanto hadaayaad aad ku siiso imtixaankiibuu soo guulaystay wax fiican buu soo qabtay hadaayaad inaad siiso cagsigeedu iyana waa la mid oo waa maxay cagsigu inuu cuquubo helo awalan cuquubaadka ugu waaweynee jidhka taabta nabigu wuxuu tilmaamay matala salaada oo kale 10 jir markuu gaadho inuu dilbilaami karo culamada tarbiya qaar ka mid ah waxay u daliishadaan intuu 10kaa ka yar yahay in nabar lagu dhuftaa inaanay fiicnayn 10kaa intuu ka yar yahay in nabar lagu dhuftaa inaanay fiicnayn oo maxaa la samaynayaa markaa duruqa wax loo ciqaabo waa tiro badantay soomaalidu halka ugu dambayso may ka bilowdaa bugta bugta marka dambe wuu bartaa ilmuhu iyo damba kama yeesho haddaad wuxuu sameeyaba ku garaacdo marka dambe garaacistii u gaadiidaa danka ma laha inaad garaacaysa iyo inaad garaacaynin idan ilmuhu wuxuu u baahan yahay inaan nabarka lagu badinin ee la sameeyo qaab kale oo loo ciqaabi karo cuquubada waxaa ka mid ah inay hooyadu ka aamusto ama ka jeesato ilmaha qaar baa xasaasiyo murhifa oo in hooyadii la hadli weyda ama ay ka jeesato qura kaga darantahay usha waxaa ka mid ah in wejigeeda ka dareemo inay ka cadhaysantahay waxaa ka mid ah wuxuu jeclaa in loo diido waqtigaa waxa la siin jiray in la yidhaha lagu siin maayo waa nooc min alciqaab yani ciqaabtu ulugun maaha iyo in la dilo uun ciqaabtu kama bilaabanto laakiin hadduu waxa xun badiyo kow waxa ka horeeya mawcida in la waaniyo oo wax loo sheego dadka bar waxa laga yaabaa deemsa goor baa wax loo sheegayaa intuu wax ku qaadan karaa in la wado waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ama qur-aankuba waxa uu inoo sheegayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala inaafa qofka xuma kugu sameeya baa yidhi idfac bilati hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim qofka xumaha kuu geystay wanaag ugu abaalgud baa ilaahay yidhi dabeetana kii dhibtu kuu geystay berri wuxuu noqonayaa saaxiibkaaga ugu dhow buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadduu qofka weyniba sidaa noqonayo ka yarina waa la mid waxaan leenahay kow mawcidada badi waanada iyo waxu sheega bale mararka qaarkood takaaful baa la sameeya kaanama aanad arkayn baa la iska dhiga
ilaan qofka haddaad daba taagnaato una fartu dhaqaajiba tiraa tanna waa lagu ciqaabaya tanna waa dhibaato lafteedu in anfaastiisa neeftiisa aad tirisa maaha oo wax yar markuu sameeyaba lagula boodo xataa mararka qaarkood takaaful baa la sameeya kaanama aanad arkaynin inuu waxaa sameynayo kalaa la iska dhiga laakiin haddaad aragta inuu ku dhiirayo kusoo socdo waa in laga waaniyaa wax looga sheegaa mar iyo laba iyo saddexba waa in laga waaniyaa hadduu kusii adkaysto waa in cuquubo la bilaabaa nawcun min alcuquubaat waa in la siiyaa in lala hadli waayo ha noqoto in la dagaalo ha noqoto in loo hadido oo cuquubada loogu hajabo ha noqoto in usha la tuso ha noqoto yani ushan inay dushuun mar kasta kaga dhacdaa shardi maaha ee waxaa la rabaa un qofka kan min baabi radc wuxuu ku joogsan karo ilmuhu da-dan markuu soo gaadho baynu leenahay markaa qaangaadhnimada jidh ahaan iyo caqli ahaan iyo dareen ahaan iyo si walba uu isu bedelaa waxaana habboon waalidku isbedelka inay la socdaan waxay dhahdaan ilmuhu markuu da-dan soo gaadho waxaa ku dhaca bay yidhahdaan qolada psychologiga qaar ka mid ah identity crisis ictiraaf la-aan baa ku dhacda bay yidhahdaan waalidku waxaa laga yaabaa weli inuu caruurta ku tiriyo isna inuu qof qaangaadho dadka waaweyn ka mid yahay inuu isku tirinayo markaa dadka waaweynna ma ictiraafsana bay leeyihin oo weli ilmo yar baa loo arkaya masaladaasi waa masalo aan sax ahayn waa in la ictiraafaa ilmuhu markuu qaangaadho waayo rabbigii baa ictiraafay rabbigii baa wuxuu tilmaamayaa inuu mas-uuliyad markaa laga bilaabo qaadayo oo acmaasha uu sameeyo o dhan in aakhiro lagu xisaabin doono socankaa maaha qofku mar hadduu qaan gaadhay acmaashiisa o dhan waa lagu xisaabinaya hadday khayr tahayna abaalmarkeedu helaya hadday shar tahayna xumaanteedu helaya haddii rabbiba aqbalay mas-uuliyaddiisa bulshaduna waa inay mas-uuliyaddiisa aqbashaa oo taa macnaheedu uu yahay inaad ula dhaqmin sidii aad kuwa yaryar shalay ula dhaqmaysay waxay dhahdaan markaa waxa koowaad ee ilmuhu markuu qaan gaadho uu u baahan yahay uu helaa waxa ugu horeeya alictiraaf in la garto qof bulshadii yaryareyd ka yimi oo bulshadii waaweyneed kusoo buuray inuu yahay in la soo dhaweeyo marka inantu iyadoo inana la soo dhaweeyo inankuna isagoo wiiloo nin ragaa la soo dhaweeyo waa marka labaad waa in la dareensiiyaa bay dhaha mas-uuliyadda oo qofkani inuu caruurnimo ka tago uu mas-uuliyad qaadi karo waa in la dareensiiyo mas-uuliyadda waxaa la yidhahdaa waa sida laysu dareensiiyo haddii aada qofka adigu mas-uuliyadda dareensiin weydo oo maxaa ka mid ah waalidku kalgacalka badan mararka qaarkooda uu caruurtooda u hayo ayaa dhib ku noqdo oo ilmahaba hayru mas-uul buu ka dhigaa haddaad maradu xidhanayo u doortid oo meeshuu tegaya adigu amartid oo wax walba aad adigu xaggaaga ka yimaadaan waanad kalsoonaanad ku qabin weeyaan waxay dhahdaan da-dan markuu gaadho adigu tawjiihaad leedahay aan tusaalayaal idi siiyo mathalan suuqaad geysi waxaad tidhi maro kugu fiican qaado maryaha meesha yaalla qaar buu qaata waalidku waxaa laga yaabaa isaga inay midila fiican tahay may waxa qaadan tan xidha buu waalidku leeyahy waa mid aanu doonaynin maxaa saxa baa la leeyahay waxa saxa ahi wuxuu yahay kow isaga tajribadiisa ma dhammaystirna oo adigu dee experience-ka aad leedahay isagu ma laha weli wuxuu u baahan yahay in la gacan qabto wuxuu u baahan yahay markaas bay leeyihin inaad adigu tawjiihiso oo tawjiihintu waa maxay wuxuu aqbalaa bay yidhahdeen marka kan waxaa caqliga gala inaad tidhaahdo tani ma fiicna waayo waxaasay ku xuntaysaa marka koowaad aad maydhay fasaqaysaa ama waad dilaacaysaa ama kuuma wanaagsana tan baa ka adag tan baa cotona tani dhididkay ku fiican sababtaad tan u dooratay waa inaad qancin kartaa idan isagoo qanacsan maradii aad la rabtay waa inuu qaataa laakiin inaad amar ku siiso tidhahdo war iska dhaaf kuwa qaadanaya tan soo qaad waxay leeyihin weli maad ictiraafin xataa maradu xidhnaa baanad u ictiraafin waa jirtaa maanta dadka waxaa laga hagaa cid aynan rabin inay hagta tv-yadan iyo azyaada dadkan ka shaqeeya moodhalladan iyo beliya baas kala haga oo aan khayr badani ku jirin waxay u baahan tahay markaa waalidku inuu hago laakiin hagitaan saxa uu ku hago ilmuhu markuu da-daa soo gaadho waxay idhaahdaan waxa ugu horeeya in la ictiraafo waxaa ku xiga bay leeyihin mas-uuliyad la dareensiiyo
mas-uuliyaadkuna waa sida qofka loo dareensiiyo u qaada. aan tusaale idin siiyo dhaqankeenii Soomaaliyeed. dhaqankii Soomaaliyeed ee hore carruurta waxa ugu badan ee laga rabay waxay ahayd in xoogooda la adeegsado. ilmuhu markuu 7 jir meelaha soo gaadhaba maqashaa la raaciyaa, dabeetana 2-3 cashaa lala eegaa, kadibna isagaa looga hadha ku filaada. ilmahaasi wuxuu dareemaa mas-uuliyad, xooluu mas-uul ka yahay, ilaalinayaa, soo celinayaa. markuu hadhow 10 jir 11 jir meelaha gaadhana adhigaa la raaciyaa, 9-8 meelaha markuu gaadho maalmaa lala raacaa, hadhowna waa looga hadhaa. mas-uuliyad buu dareema, xoolaha isagaa daaqgeeya keena. markuu intaa kasii yaro karo dhowr iyo 10 jir gaadho gela lagu daraa. ilmaha baadiyaha jooga mas-uuliyadda wuu uga dareen badan yahay ilmaha magaalada jooga, waayo ilmaha magaalada jooga inta badan lama dareensiin. cidiba inta badan kuma odhan mas-uul baa tahay, ee weli waxaa loola dhaqmaa un inuu carruur yahay. maadaama uu carruur yahay, kabaha waa loo iibiyaa, dharka waa loo iibiyaa, iskuulka waa la geeyaa, waa laga soo celiyaa, cunada waa loo kariyaa, waa la siiyaa, halkaas seexaa la yidhaahdaa. wala shay wax loo diraa ma jirto. inagaa fasaadinayna markaa ilmaha. haddaanad waxbaba u diraynin adaa fasaadinaya. waxaa laga yaabaa weliba jiilba jiilku kasii dambeeyo inuu kasii mas-uuliyad daran yahay. waxaa laga yaabaa inanta yarayda 10 jirka ahayd ama 11 jirka ahayd 60-nadii 70-nadii 80-nadii inay reerkooda u shaqayn jirtay, laakiin ta maanta 10 jirka ama 11 jirka inaanay waxbaba qaban baa laga yaabaa. bekeerisaa loo xala ma aqoonin, waayo hooyadeed baan waxba barin. waan trainingka la siin, waan la dareensin inuu qofkani mas-uul yahay, inuu qofkani mas-uul yahay la dareensin. walidaalika waxaan idin leeyahay midi sax maaha carruurta in fatiig lagu ridaa, sax maaha in la daaliyo oo la xiijiyo guriga ilmo yar keligii lagaga shaqeeyo maaha, taasi sax maaha. laakiin waxaa kaloo cagsigeeda aan sax ahayn inta meel la fadhiisiiyo in cadalaadkiisa la fadhiisiyo oo qof hayru mas-uula laga dhigo oo maskaxdiisu kori weydo. maskaxdu mashkilaadkay ku kortaa. qofku problemskan uu xalilayo, mashkilaadkan soo marayo, uu ka fakarayo, ayuu experience-ka waa aragnimada ka helaa. haddii qofka maskaxdiisa la yidhaha halkaa ha fadhido oo waxba yay qabanin, kori mayso. saa daraadeed mas-uuliyadna dareemi maayo. markaa taariikhdii saxaabada iyo salafka ku noqoto, ilmaha 15 jirkii mas-uul buu ahaa, bal inay dagaalka ka qayb galaan bay doonayeen. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ghazawaadkiisii qaar ka mid a dhalinyaro saxaaba baa soo raacday. hadha buu yidhi idinku waa yaryartiina dagaal geli mayno. dagaalka ma geli kartaan? maya, waa dagaalamaynaa bay idhaahdeen. dabeetana saxaabadii la socotay ayaa wixii 15 jir ama qaangaadha la soo daayay. nin kuwa aan ka mid ahayn oo yar ayay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo ninkaasi gamuunka leebka sida loo rido yaqaana waa nin dhug badan, lama seego halkuu wax ku tuuro, ee kaa ciidanka kusoo darbay yidhahdeen. isaga waa nin dhugtiisa fiican oo shiishyahana, halkuu wax ku tuuro ninka weyne lama hela bay yidhahdeen. isaga soo daa. kii baa la soo daayay. wiil kale istaago wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ninkanaad sii daysay anaa ka xoog badan, weligayo maana lagdamin ilaa iyo dhinaciisa dhulkaa dhiga. lagdamaa la yidhi, waa lagdameen, markiiba dhulka dhigay. adna raac baa la yidhi. yacni dadkaa dareemaya inuu dagaalami karo. dagaal ka waran, seef iyo waran iyo goob la isku dilayo ayay rabaan da-dan inay gasho. macnaheedu waxa weeyaan qofku ma aha da-du jiro waxa macnaha samaynaya. waxa macnaha samaynaya waa qofka sidaa loo traingareeyey marka hore, sidaa loo kobciyey ama loo barbaariyey. haddii loo barbaariyo inuu gurigu u fadhiyo, wuxuu cuniyo, wuxuu cabiyo, maro la siiyo, 20 jirkiisa waa carruur, dhowr iyo 20 jirkiisa waa carruur. haddii loo barbaariyo inuu qof mas-uuliyad qaadi kara uu yahay oo la ictiraafo oo bulshadu ictiraafto, waa qof horumari kara. idan waxaan leenahay ilmuhu markuu soo qaangaadhaba iyo wixii ka dambeeya wuxuu u baahan yahay in qofnimadiisa la ictiraafo. inantuna inay inanta in la ictiraafo oo loo diyaariyo inay guri yeelan karto, degi karto. inankuna inuu inan yahay in la ictiraafo, loo diyaariyo inuu guri yeelan karo, degi karo. waxay u baahannahay baan leenahay inaynu dareensiinay inay mas-uul yihiin, oo mas-uuliyaddu markaa tahay ayi shay loo diro inuu qof xambaari karaya, maadaama uu cinda allahi subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddaasiba qaadi karo oo ilaahay agtiisaba uu ka yahay qof mas-uulah oo wuxuu sameeyo oo dhan loo qaban karo. waxaan leenahay waqtiyadaa waxyaabaha u baahan in la tawjiihiyo waxaa ka mid ah xilligii inta badan awaamirta wuu soo dhaafay, xilligii waalidku la weynaayeenna wuu soo dhaafay. ilmuhu markuu yar yahay
dunida hooyadii iyo aabihii inay ugu fiican yihiin buu rumaysan yahay markuu yar yaanu guriga ka bixin iyagu namuudaj u arkaa wax walba iyagu kaga dayanaya laakiin markii uu weynaadee dabadu baxee waxoogaa aqoona yeeshay iskuulla dhigdhigtay qof koray buu isu arkaa sidii uu markii hore kuu arkayay kuu arki maayo marka kan adna waa inaad taa ictiraaftaa markaa qaamadiisu dherarkiisu intii hore uu kasoo dheeraaday hadday inan ahayd iyo hadduu inan ahaaba sidii uu marka hore markaad wax sheegtaba u aqbalayay marka kan uu ka gadisan yahay idan kii 10 jirka ahaa ama 9 jirka ahaa sidii aad u amraysay iyo kan 15 jirka waa inaad isku si ula dhaqmin wuxuu u baahan yahay inaad badiso inaad qancin karto su-aashu kugu badin doonaa waxaa qabo waayo buu la soo taagan yahay maxaasaa loo yeelaya wuxuu u baahan yahay inaad qancin karto nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wiil yaroo dhalinyaraa baa u yimid dabeetana wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo anuu nin baan ee waxaan rabaa in lay fasaxo wuxuu rabaa inuu suuqa galoo zinaysto aniga hallay sii daaya buu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo hallay fasaxo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yeedhay warkaalay buu yihi soo dhawow wuu soo dhawaaday halkan horteeda fadhiisuu yihi halkuu fadhiisiiyey dabeetana nabigu inankan su-aaluu weydiiyey waxaanaad sheegaysa buu yihi miyaad hooyadaa la jeceshay hooyadaayoo ceebtaa samaysa inaad maqasho miyaad jeceshay may buu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo hooyaday lama rabo wuxuu ku yihi dadka kalena cid bay hooyooyinkood yihiin oo aan la jeclay miyaad walaashaa la jeceshay wuxuu soo waday nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii dumar ninkan ku xeerraaya agtiisa ah hooyo walaal miduu dhalay eedo habaryar su-aalahaas u weydiiyaa xumahan in lagu sameeyo miyaad la jeceshay mid kasta may buu isa soo taagay dadka kalena qaar bay habaryariyo eedooyin iyo hooyooyin iyo kuwan iyo lalama jecla baa lagu yidhi markii dambe nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacanta laabta ka saaray ayuu u duceeyey dabeetana sidii buu kaga hadhaymay yani waxaan uga jeedaa xataa wuxuu ku weydiinayaa wax adagba ha noqoto nabi maxamed wuxuu leeyahay inaan zinaystaa baan doonaya alla fasaxo manuu dagaalin mana maagin nabigu intuu u yeedhay buu qanciyo oo la hadlo taa macnaheedu waxa weeyaan da-dan markay soo gaadhaan caqlu isbidaya aqoon buu isbidayaa walow ay yaryihiin aanay tajaarib weli helin wuxuu u baahan yahay markaa in la qanciyo wuxuu u baahan yahay in wax loo sheego wuxuu u baahan yahay waxa la rabo in loo riisan gareeyo مثلا لقمان الحكيم إلهي قرآن كمركو كورميه يا بني ويل كيجي ويلي لفطي وكبر لحوصنا يووياني المها يجيو لا تشرك بالله بيولي إلهي هو شريك يلي وسؤال شو حويا محا إلهي لو شريك يلي واي والسببين إن الشرك لظلم عظيم بيولي شرك هو ظلم وين شرك هو haddii qof wax ku siiyo oo ku abaalgudo oo wax badan uu ku taro ugu yaraan soo inaad ama u abaalguddo ama hadal fiican aad ku tiraahdo maaha ugu yaraan qofka caynka kuula dhaqmay waxa weeyaan ugu yaraan inaad hadal fiican ku tiraahdo ama haddii qofkii kuu wanaaga sameeyey qof aan ahayn aad u abaalguddo ama abaalgudkiisi aad samayn weydo dadoo dhan wuxuu garanayaa inay wax xunta inay dulmi tahay socanka maaha waxaa la mid ah rabbi subxaanahu wa tacaala wuu ku abuuray wuu ku arsaaqay wuu ku caafimaad siiyey wax walbuu ku siiyey waxaa lagaa sugayay waxay ahayd inaad rabbigaa u abaalgudid ugu yaraan u mahadnaqdid cibaadadu iyo tawxiidku waa abaalgud inaad ilaahay qirto inuu keliyo aan cidi waxba la wadaagin ugu yaraan waxa weeyaan waa ictiraaf aad ictiraafayso rabbigaa subxaanahu wa tacaala haddaad markaa la caabudo cid aan waxna ku tarin ka waran yaanay dulmi ahayn waa ilaahay xuquuqdiisi aad ku xadgudubtay ilmahan yar markuu wax u sheegayay luqmaan alxakiim ee uu rabay inuu yidhaahdo shirkigu waa wax xun ilaahay ha u shiriig yeelin cid ha ku lamaanaynin muu ku odhanoo qura cid ha ku lamaanaynin ee wuxuu u raaciyay sababtii ina shirka la dulmun cadiim buu yidhi shirkigu waa dulmi weyn waxay leenahay da-daa markuu soo gaadho markaa ilmuhu waxaa bata su-aashiisa waxaa bata wax kasta inuu ka waramo sidii uu isaga ugu muuqatay
waxay u baahan tahay markaa in la qanciyo oo laga qanciyo waxyaabaha kale. waxaan leenahay marka da-dan markay soo gaadhaan waxyaabahay u baahan yihiin ugu khatarsan waxaa ka mid ah saaxiibkaynu ka yar usoo sheeganay kan buu kasii muhiimsan. waayo waxay idhaahdaan bear to bear speaking bay idhaahdaan da-da isku midka ahay intay wada hasheen da-yartaa yari 8 saacadood buu maalintii hadlaan bay dhahaan kuwa yaryari. way hadal badan yihiin markay da-daa soo gaadhaan maalintii 8 saacadood way hadlaan bay dhahdaan. 8% ma aha bay dhahdaan intay qof weyn la hadlaana. ha hadlaane ma jecla dadka waaweyn haddana inay la hadlaan. kuwa da-dooda waa laga yaabaa islaamuhu inaad had iyo goor maqasho iyadoo hooya leedahay na maxaa ku buuqaysaan habla yarro iyagu wada sheekaysanaya yarro wada hadlayan mar kula aamusaynin. waa sida dabeecada caadiga lagu ogyahay. maadaama uu warku caynkaa yahay oo hadalkani badan yahay oo sheekayn doonaan oo hadli doonaan waxaa muhiima cidda uu sheekaynaya inaad garatid sidiiq iyo saaxiib fiican inuu yeelasho. inantu inan fiican oo la saaxiiba ama group saaxiibba wanaagsan inay yeelato waayo aama ugu taakeli maysid ee dad wax wanaagsan ka hadlaya inay la hadashaaba fiican. inanku inuu helo group uu la dhaqmo nooca kan ka mid ah. da-da markay soo gaadhaan waxyaabaha muhimka u ah waxaa ka mid ah waa wada taaqa waa wada energy bay idhahdaan. waa awood koraysa maskax ahaan xoog ahaan caqli ahaan tabar ahaan itaal ahaan qaab walba kor buu u socdaa. ma kaydsama bay idhaahdaan weliba wax badan oo ka midi wuxuu u baahan yahay meel uu ku bixiyo. daaqada iyo enerjiga ama xumuu ku bixin ama samuu ku bixin. samuu ku bixinoo qofka haddii cibaadada la baro khayrka la baro wanaagga la baro khayrka qayb qaadashada la baro waxa weeyaan juhdi badan buu bixinaya laakiin wuxuu ku bixinayaa maxay meel fiican. haddii kale ma kaydsamaye shar buu ku bixin doonaa. ilmuhu markuu yar yahay isaga waxaa laga yaabaa daaqadiisa aan kaydsamaynin inaanu wax badan oo khayr iyo shar oo ku bixiyo ku qasabi ma jiro. kaa waxay idhahdaan isaga waa in loo ogolaadaa cayaarta. casriga dambe waxaa adkaaday meeshii lagu cayaarayaba. baadiyaha berigii la joogay ilmuhu goor ay habeenkii cadcadaystaan iyo mar layloolaan iyo mar ay siryadaan iyo dhul banaan bay iska haysteen oo ay cayaar oo dhan ku samayn jireen. waxay dhaqan Soomaaliya cayaar caruuri lahayd oo dhan meel ay ku sameeyaan bay lahayd. bulshadan dambe iminka deegaanka noqotay bulshooyinka horumaree dunida caruurta iyo waxaa meel ugu talagalayna ma aha. deegaankiina waa la wada degay meel banaanayba kuma taalo. caruurtuna cayaartu waxay ka mid tahay siday raashinka ugu baahan yihiin bay ugu baahan yihiin. siday raashinka ugu baahan yihiin markuu wax cuno enerjiga meel iskaga saaraa buu u baahan yahay. markay waayaan meel ay ku cayaaraan adiga gurigaagu buu jajabin. islaamuhu intaa un mid yaroo guriga ordayo buu daba socdaa qolkana gelin halkan ka xidha halkan dee suu yeeli meel walbana haddaad ka xidho meel u baxaana aanu jirin waa qof la ciqaabay. qofkana enerjigana kuma kaydsamayo waa qasab inuu bixiyaa. wax walbana waa loo diiday. gurigii waa loo diiday gurigu ma laha meel lagu cayaaro. xataa kuwa gaalada iyo waxaas iyadoo laga yaababa in dhaqaaluhu saamaxay iyagu waxay garteen guriga qol dhan oo cayaari inuu jiro. qol bay carruurta waxay ku cayaaraan oo dhan u dhigaanoo dabeetana waxaa la yidhaha qolkaa galo wixiina ku cayaara. innaga guri meel la seexdaa bay nagu yar markaa qol cayaar loo dhigayna ma jiro. saa daraaddeed ilmahani u ciqaaban yihi. meel ku cayaara ma haysto meel dabadeed ma jirto guriga lagama ogola. isaga ilaahay baa ku abuuray oo markuu wax cuno enerjiga waa inuu bixiyaa. soo ma ogid qur-aanka nebi yuusuf waxa qudha ilmihiisii lagaga khiyaamay inay ahayd waa soo cayaarsiinayna yalcab waa yartac bay idhahdeen. markuu si kale uu diiday waxay idhahdeen wuxuu u baahayay inuu cayaare nagu dar. cayaartii bay god ku soo rideen markaa kuwii rabay inay khiyaamayaan. ilmuhu yari cayaar kama maarmo. ilmaha weynina wuxuu u baahan yahay cayaar caruurnimo inaan dib loogu celina istifraaqu taaqa meeluu ku bixiyo inuu helo. hadduu qof wax akriyo yahay in loo sameeyo buugaag iyo wuxuu akriyo oo dadka badh baa wax akhriska ku fiican laga yaabo saacad 2-3 inuu wax iska akhrisan karo. hadduu guriga library wanaagsan u yaallo akhri karo ama library-ga la geeyo. qaar baa ku fiican cayaaro jirkiisa dhisa inuu sameeyo. cayaar waxaa ugu liita tan tv-ga laga daawado iyadu waxba ma tarto. akhriya adduunka toona wax ma anfacdo. niman boodboodayo kubad cayaara inuu isagu cayaaraba ka roob
waayo ka isagoo cayaaraya jidhkiisa kala baxaya ama nin meel boodboodaya hadday caawiyo berrigo daawadaan xanuun bay ka qaadayaan waayo qofku bay yidhaahdaan dhowr saacadood inuu meel focusid ku ahaadaa jidhkiisay xataa wax yeeshaa ilmaha yar isma dhaado dhinacunbuu isaga jiifsadaa tv-ga hoos fadhiya muruqyada iyo xanuuno badanoo ku dhaca waxaanuu daawanaya kaga dhacaan iyo indhala-aan badanoo ku dhacda qaabkan u eegiyo tv-ga iyo waxa kale walidaalika waxaynu leenahay waxa muhim u ah daaqada meeluu ku bixiyo energy-ga inuu helo waxa kaloo muhima baynu leenahay firaaqiisana in la buuxiyo waqtiga firaaqee tirada badan leysna waa mufsid ilmuhu hadduu guriga intuu soo fadhiisto wuxuu qabtaba uu garan waayo wuxuu qabtaba hadduu qofku garan waayo firaaqadu iyadaa mufsida iyadaa wax fasahaadisa wax dhib oo tiro badan buu markaa ku fakeri doonaa ilmuhu xad buu u baahan yahay inuu mashquul ahaado tacliin mashquula ku noqdo ha ku caawinayo meel kale ha tegayo wuxuu doono qofku firaaqada tirada badan le qofka way fasahaadisaa waa laga yaabaa inaad tidhaahdo waa u raaxaysanaya shaqada ka ilaali wax walba ka ilaali firaaqada wax fasahaadisa firaaqa tirada badan le rag iyo dumar toona kuma fiicna walidaalika waa inuu helaa waa inaad u samaysaa firaaqiisa inaad buuxin karto oo wax haadifa wax waxtara in lagu buuxin karo qodobka ugu dambeeya aan tilmaamayno ee masaladan ku saabsani waxa weeyaan da-da markay soo gaadhay way qaan gaadhay maadaama ay qaan gaadheen qaangaadhnimada waa in lagu tawjiihiyaa inan hadday tahay hooyadu waa inay u train garaysaa say guri u yeelan kari lahayd waxay u baahnayd oo dhan ay ka fekeri lahayd waa in loo train gareeyaa inan hadduu yahay waa in loo train gareeyaa tajribadan qofkani waa inuu gurigooda kasoo helaa intuu gurigooda joogo oo hooyadood la joogo waa inuu soo helaa walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka iyo axaadiistaba in badan waxaa laynoogu tilmaamaya atarbiya aljinsiya oo wax badan qur-aanku uu ka waramaya in dhowrsoonida la baro qofka kan waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaxan xataa yugniyahum allahu min fadli ama nebi yacquub kadalika linasrifa canhu sua walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin in la baro isha inay rogi karto oo inan iyo inanba kuwa kale inaanu fiirin ama xumaha samaynin waxaan ugu dambaysiinayaa markaa waxa ugu weyn in wax lagu tarbeeya waxaa ka mid a baryada ilaahay ilmaha in ilaahay loo baryo habeenkii markaad tukanaysid aada u baridid salaadahaaga aada ugu baridid ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa nebiyo ducaysanaya oo carruurtooda u ducaynaya rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyati rabbana wataqabal ducaa abulambiyaa nabiyullaahi ibraahim oo ducaynayoo leh rabbi ijcalnii muqiima asalaa ilaahu waxaad iga yeeshaa mid salaada ooga wa min duriyati kuwaan dhalayna ilaahu sidaa ka yeel buu leeyay ducada waalidku iyo habaarka waalidkuba uu nebi maxamed wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay kacaan soomaalida dambe waxaa ku badan labada habaarka habaarku waa khatar markuu wax yar kaa jebiya ama wax yar sameeyaba meel daran ka dhac iyo beliya baasku haleeshay iyo alla ku doori haddaad ku tiraahdo wuu doorsoomi waxaan isleeyahay dhib badan oo soomaalida haysata waa ka mid islaamaha habaarkoodii soomaalidu waxay yidhaahdaan mae habaarka islaamtu waa lagu koraayo khayr bu noqo khayr ma noqdo waa xaqiiqo jirta khayr ma noqdo hadal xumo khayr ma jiro nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa ducaa lwaalid liwaladi calayhi iyo lahu labadaba in la aqbalo waalidku hadduu habaartamo habaarkiisu waa khatar walidalika uu nabigu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka wuxuu tilmaamayaa xadiidka nebigu wuxuu tilmaamayaa hooyo inankeediio caabido u timi aada u cibaado badan jurayj meel sawmaca gaara u baxay oo ku cibaadaysta ayay isa soo hortaagtay markaasay tihi yaa jurayj waa u yeedha salaad buu isna ku jira dabeetana wuxuu yihi salaada iyo hooyaa iskhilaafay salaaddu iska wata islaantii waa raagsato waa iska tagta maalin dambay timi oo yaa jurayj bay ku tidhi isagoo salaadii uu sidii ugu jira kari salaad kama baxo cibaadu meesha u galay
maalintii dambena sidiisi leeg baa dhacdo way iska tagtay maalin saddexaadii bay timi yaa Jurayj bay tiri ummi wa salaatii buu yidhi salaadii buu waday maalintan markii halkaa la joogay islaantii habaartantay ilaahay waxa kuu baryay bay tiri dumarka xunxun wejigooda in alla ku tuso way iskaga tagtay Jurayjkii cibaadada u go-ay halkaa ku jiray ayuunbaa qolo magaaladii xanxantanto waxbaa laga sheekeeyuno waxaa la yidhi ninkaasi waa nin cibaado badan gabadh qurux badan dumarka xunxunna ka mid a tiri waxba maahay walaa imikaa fasaahadin kara maadaa ku dhaca baa la yidhi oo Jurayj wax yeeli karaa waa usoo tafaxaydatay Jurayj waa iska indhatiray lama hadal gabadhii xumay markii dambe Jurayj meel dabaq saraa buu seexdaa uu ku jira hoostiisa ninbaa xoolo ku xaraystoo jooga ninkii xoolaha meesha ku xaraysanaya bay iskala seexatay dabeetana ilmay dhashay ilma ayaa kaa dhalay markii la yidhina Jurayj bay tiri odayga dusha saaran baa dhalay magaaladii waa cadhootay oo waxaa la yidhi ma ninkii weliga noo sheeganaya yidhi meeshaan koray baa gabadhan ilma ka dhalay inta lasoo cararaa la dumiyey sawmacadiisiiba uu qayliyo war maxaa jira buu yidhi waxay yidhahdeen gabadhan baad ilma ka dhashay mee ilmihii buu yidhi waa kan baa la yidhi ilmihii buu gujiyey wuxuu yidhi laba ragcadood aan tukadii kaada wuu sunnaystay dabeetana ilmihii buu gujiyey yaa walad man abuuk buu yidhi waa kuma aabbahaa ilaahay baa ka hadliyey kii yaraayo wuxuu yidhi qawsaarka dhoobigan xoolaha raacay dhalay dabeetana waxaa la yidhi dib baanu kuugu dhisaynaa sawmacadaada iyo waxaadi xadiidka maxaan uga dan leeyahay ninka kan waxaa laga yaabaa inuu awliyada ilaahay ka mid ah waa ninkaa ducadiisa ilaahay aqbalay haddana intuu ilma dhashay gujiyey yidhi waa kuma aabahaya ilaahay uga hadliyey haddana maca welinimadiisaasi habaarkii islaamtu waa haleela ay tiri dumarka xunxun alla wejigooda ku tus iyadoo uba haysata inuu ilma ka dhalay baa alla keeno iyadoo uba haysata inuu ilma ka dhalo magaaladoo dhami leeday tan baad ilmaha ka dhashay ayuu meesha yimi idan waalidka habaarkiisu waa khatar waalidku inuu ilmaha habaaro maaha haddii uu khayr la rabo ducadiisuna waa waxtar oo duco waalid iyana meel qaldan ma dhacdo inta aada u ducayn kartaan ilmaha u duceeya walow wuu ku dhibay walidalik baa dadka badh carabahan oo kale waxay caado ka dhigteen xataa markay cadhoodaan inay erey fiican iska yidhaahdaan sacuudiga meelaha haddaad tagto waxaa laga yaaba inaad maqasho iyadoo lagu leeyahy allaa yahdiik allaa yahdiigtani waa markuu cadhooday uu rabay buu afkiisa ku ilaashaday duco nafle ugama jeedo laakiin wuxuunbuu diiday inuu habaartamo ama caytamo ayuu allaa yahdiigtan u yidhi waalidku waxaa habboon ugu yaraan erey fiican inuu iska isticmaalo waxaan leenahay marka waxa u dambeeya aan tilmaamayo aan leeyahay waxay u baahan tahay in lagu rabeeyo caruurta waxaa ka mida baynu leenahay in ilaahay loo baryo subxaana wa tacaala rabbi loo baryo aan la habaarinna oo habaarka laga ilaaliyo ugu dambeyn waxay sheegaan waxay yidhahdaan atarbiya bilaxdaath dhacdooyinka reerka ama guriga ama mushkilaadka dhaca in lagu tarbiyeeyo yacni waa qisaskan iyo waxaan dhaca mushkilad timi in loo sheego waxaas wuxuu ka dhashay inay waxaa tahay axdaath iyo dhacdooyinku carabta waxay ku maahmaadaa idrab alxadiida wahuwa saakhin birta garaac intay kulushay waayo markaasay kala baxaysaa waxaa la mid ah dhacdadu markay joogto ayuu qofku wax ku qaadan ogyahay si fiican uu fahmi karaa waxa aan sheegay markaan isku soo duuduubo ilmuhu isku wada mid maaha waxa aan sheegay waa inta aynu leenahay ugu badan ee wasaa'il la adeegsan karo wax ka mid ah ilmuhuna isku mid maaha meel quraha kaga wada talageli iyadoo hooyiya aabbo quri wada dhaleen soomaalidu waa kuwa yidhaahda uur hooyo eex laga bartaa bay yidhaahdaa ilmahaad dhashay sidaa mid madow iyo mid cad iyo mid qurux badan iyo mid foolxun bay u kala leeyihiin ayay dabeecadahoodana u kala wataan mid caqli badan iyo mid laba shub wax ugu dhacaan iyo mid karti badan marka ha kaga talagelin wasiiladii mid intaad ku samaysay aad ku guulaysatay ku walba inay ku guulaysanayso ha ku talagelin ee qof walba wuxuu kaaga baahay inaad sidiisa u daraasayso ilmahaagu waa kala disan yihin waa kala fahmo badan yihin waa ku kala dhoganugul yihin waa kala xanaaq badan yihin waa kala kulayl badan yihin
وكله هنقولي بديني وحكسته وكله قد سناكنا ولذلك هو يدو وحا هبون المهدة انت الدراسيسو إنه يوغاتا عن طريق التجربة باي كبران دوتا مدبا وحا وعنطبا مدبا وح مقلين إلا وشاات سواقا هذا طوش أركم موياني مدبا هو يفرسها هذا تراسك فرستا كلا نقا دقي سيدا وغادو حلاي هاي فروق الفرد قانا يعني وحيابها يكوكلا قدسينا وين اتبرطا سياد ولد قمتو فرايتس كابدت كاكلا قدسنا هذا شيء صلى الله على النبي محمد